الرحمن الرحيم دمان soo dhawaada Softgate Academy casharkeeni saddexaad oo maanta aan ku baran doono SQL database la yiraahdo SQL aan ku baran doono shantan cinwaan kii hore waxaan ugu soo hadalnay qaabka loogu shubo installation-ka uu u dhaco SQL loogu shubo marka laga soo gediyo website-ka ama mareegtada Microsoft kadib qaabka installation-ka loo sameeyo waxaan kale oo casharkii koowaad aan ku soo aragnay waxa database administration ama database wuxuu yahay DBMS iyo RDBMS farqiga u dhaxeeyo ayaan ku soo aragnay casharkeeni koowaad waxa la socotaan Softgate Academy anigoo Maxamed Isaaq Xasan ayaa idin soo jeedinaya muuqaalkan aad ugu faraxsanahay inaan cashar kale isla qaadano maanta marka waxyaabo aan arki doono waxa kamid ah qaabka loo abuuro database oo ah wixii aan soo aragnay database a collection of related information ama data ayaa laga wadaa qaabka oo abuuri lahayn table qaabka wax soo gelin lahayn table kaas idoo isticmaalina insert qaabka soo muujin lahayn muujintaas oo laba qayb noqon doonto haduu Ilaahay yiraahdo qaabka soo muujin lahayn ayadoo dhameystiran iyo qaabka soo muujin lahayn ayadoo qayb ah oo muujin qaybeed oo kala ah ama muujin partial ah marka hore waxa u baahanahay marka inaan soo kicino wax la yiraahdo Microsoft ama SQL Server Management Studio ayaa u baahanahay inaan soo kicino marka haddii uu computerkaaga ii sheeg ku saaran yahay setup halkan ku saaran yahay badanaba ma dhacdo oo in la soo dhigo ayaa lagu qasban yahay laakiin haddii kalena start menu ayaa tagaysa aniga hadda Windows-ga haysto waa Windows 8.1 waaye sidaa darteeda marka 8.1 maadaama uu yahay start menu qaabkan uu ekaan doona adiga hadduu marka ku yahay ten hadduu ku yahay waxaa ku qoraysaa SQL server ayaa qoraysaa kadibna SQL server 2014 ama 2014 management studio ayaa ku soo muuqanaya kadib marka in yar ayaa sugaysaa oo daqiiqadahaas ah daqiiqada ma dhamo waa si kama yar kadibna waxa ku soo kici doona haduu Ilaahay yiraahdo environment-igi deegaankii ugu horeeyo ee Microsoft SQL server ayaa ku soo kici doona marka haddii marka halkan ayaa ugu horeysa ku soo kici doono mid ugu horeysa laga rabo inaad iska saxdid waa server name wax lagu magacaabo iyo server type waxa laga rabaa inuu database engine saarnaado analysis reporting iyo integration service ay jiro intaas lama rabo database engine inuu saarnaado maxaa yeelay serverka isticmaal rabno waa database-ka authentication-ka dhib ma lahan okay sidoo kalena express-ka ama serverka uu ku saaran yahay daatada ku hayana waa inuu noqdaa midkan waa inuu noqdaa hadhow marka waxa laga yaabaa inuu ka maqan yahay ama server kale qalad ku saaran yahay ama error uu ku soo baxayo uu ku leeyahay serverkaas lama hayo waxa ka sixi kartaa halkaan ka sixi kartaa kadibna browser ayaa leedahay kadibna database engine kadibna magacii serverkaaga ayaa dooranaysaa kadib waxa leeyahay connect ayaan leeyahay connect markaan dhaha kadib environment-ii ugu horeeyay oo waxa ii soo baxayo lagu magacaabo Microsoft server ayaa ii soo baxayo ama Microsoft SQL Server Studio ayaa ku soo baxayo kadib waxa ugu horeeya aan sameynayna waxay tahay halkan waxa ku haysanaa databases-keeni hadda wax databases aan noo sameysan waxa ka jira Softgate iyo test ayaa ka jiro marka waxaan sameynaynaa mid kale aan sameynaynaa database halkan waa ka tuuri karaa qaab kale loo tuurana way jirtaa iyadoo la qoraayo query la qoraayo sidoo kale waan arkaynaa midaas haduu Ilaahay yiraahdo okay waxa u baahanaa marka halkan joogno marka halka joogno database-yada midna waa system database midna waa user database system database waxa ku jira database-yada ku diyaarsan oo sida master oo kale tempdb kamid ah model kamid ah waxa kale kamid msdb kamid ah intaan oo dhan waa databases ku diyaarsan okay marka waxaan leeyahay new query ayaan leeyahay shaqada ugu horeysa aan qabanayo waa inaan dhahaa new query waa inaan dhahaa ama dalab cusub waa inaan sameeyaa kadibna marka waa inaan maadaama aan sameey rabo qodobka ugu horeeyaan sameynayna waa sida loo sameeyo xog kaydin ama saldhig xogeed sida uu sameynayno marka waxaan leenahay create database kadibna database name-ka ayaan raacinaynaa waxaan leenahay Softgate 1 ayaan leenahay kadibna F5 waan taaban karaa oo function 5 ama haddii kale execute ayaan leeyahay waxaa la rabaa marka halkan inuu command successfully completed inuu ii soo qoro ayaa loo baahan yahay kadibna waxaan leeyahay hadda marka waxaan xusuusnaataa halkan fiiri waxaan isticmaalaynaa database-ka master la yiraahdo ayaan isticmaalaynaa laakiin waxaan u baahanahay inaan isticmaalno database-keena anaga noo goonida ah ayaan u baahanahay master database maxaa yeelay wuxuu ka mid yahay system database ayuu ka mid yahay mana rabi aniga system database inaan isticmaalo marka waxaan leeyahay use Softgate 1 waxaa isticmaashaa Softgate 1 use marka
ama markaan iraahdo create database fiiri wax farqiga fartaan u dhaxeeya bal fiiri markaan iraahdo fiiri fartaan hadda kalarkeeda waxa u dhaxeeya farqi sama midaan waa madow midaan waa blue midaan waa madow midaan waa blue wayaa sheegi kara farqiga u dhaxeeyo farqiga u dhaxeeya waxay tahay midaan madowda ah waxa la yiraahdaa user keyword ama user sheeg user words oo kalena waa la yiraahdaa oo ah wax userka isaga xur u yahay kala bedelan kara waay laakiin midaan waxa lagu yaqaanaa system keywordna lama bedeli karo mana qaldami karto hadda fiiri haddii amarkan sidaan aan dhaho fartu way bedelmaysaa shaqana la ima qaban karo oo error ayaa soo baxaya lama yaqaano ereygaas lama yaqaano near database waxa inta ka jira lama yaqaano marka waxaan u baahanahay inaan isticmaalo ereyada keywords kana isticmaalo okay use isticmaal Softigate 1 isticmaal kadibna waxa la yiri Softigate 1 waa lagu isticmaalayaa maxaan ku ogaan karaa halkan ayaan ku ogaan karaa Softigate 1 ayaa halkaas ugu soo qormaysaa marka mid ogaaw marka waxa ugu horeeyo ay tahay inaan sameeyno marka aan database sameysano marka aan ugu horeyso database aan sameysano database waan sameysanay stepkii koowaad waan ka soo gudbay waxa labaad ee laga rabo waa inaan table sameeyaa table-kana sidiisa naqshad uu leeyahay table-ka waa naqaanaa sooma table-ka waa sidii office word oo kale table-kiisa html table-kiisa waxyaabahaas oo dhan table waxaan rabaa marka laga buuxin karo student name class laga buuxin karo sidoo kale laga buuxin karo sheeg address laga buuxin karo address inta la gaarin faculty laga buuxin karo classka waxa ku bedeshaa contact number ku bedel kadib faculty ku dhigto ardaygaas kadibna fiiga uu bixiyo intaana rabaa inaan table-kayga aan ku keydiyo magaca ardayga contact number laga xiriiro faculty-ga uu dhigto iyo fiiga uu bixinayo intaas ayaa rabaa table sameynay marka table-keena wuxuu waay 4 column waaye 1 2 3 4 column waa 4 column ka kooban kan marka data type ama xogta la soo gelin doono wuxuu noqonaa wax loo yaqaano varchar ayuu noqonaa kanna wuxuu noqonaysaa sidoo kale varchar varchar noo isticmaali karnaa laakiin waa dhibaato ma lahan varchar ayaan isticmaalaynaa kanna data type ka isticmaalayna ama xogta nooca xogta la soo gelin doonana wuxuu noqonaa money ayuu noqonaa okay waxa ka horeeya isticmaalayna waxay tahay id ayaan isticmaalaynaa kaasoo ah integer ayaan isticmaalaynaa so marka hore marka koowaad waa inay sidaan ay kugu naqshadaysan tahay waxa aad sameyn doontid okay hadda marka waxaan leeyahay create table wajida farta mar walba blue ay isku bedelaysaa kadib waxaan leeyahay id integer hay ahaado kadib waxaan leeyahay student name hay ahaado varchar 15 ama varchar 20 oo ah 20 xaraf iyo ka badan magaca okay waxa ugu xiga marka student name waxaa noogu xigay student name waxaa noogu xigay contact number iyo faculty ayaa noogu xigay sooma okay contact number taasoo isagana ah haddaan dhaho waa varchar 20 iyo faculty kaasoo ah varchar 20 isagana ama faculty waxaan ka dhignaaba saan soo yareeno character oo 10 ayaan ka dhigaynaa kaliya kadib waxaan u baahanahay inaan iraahdo fee kaasoo ah money ayaan u baahanahay kaliya inaan iraahdo ayaan u baahanahay okay so marka table-kayga waa kana way sameysanya marka waa inaan iraahdaa execute waa inaan iraahdaa okay waxaa jiro fiiga waa money id integer student name okay contact number marka waxa qaldan waxay tahay create table name ayaa halkan ka maqan table name keen waxaan u bixinaynaa students ama waxaan u bixinaynaa registration ayaa u bixinaynaa diiwaangelin table keen waxaan u bixinaynaa diiwaangelin ayaan u bixinaynaa execute ayaan leenahay okay table keen hadda uu samaysan yahay execute ayuu yahay saan u arko marka waan soo muujinaa waxaan leeyahay select all from registration F5 ayaan taabanaa kadibna table-kayga wuu soo table-kayga halkan ayuu igu soo muujinayaa laakiin wax xog ah hadda kuma jirto so marka waxaan u baahanahay inaan sameeyo xog gelin inaan sameeyo waxaan leeyahay insert into registration kadibna waxaan leeyahay values waxa aad gelin doontid ha ii soo noqdo
ID waxay gelisaa 1001 student name waxay gelisaa cali cabdi cali ay geli kadibna contact number waxaa gelisaa contact number maadaama varchar yahay waxaan gelinaynaa number caadi ah 5 8 7 8 9 8 4 oo kale okay faculty ayaan u baahanahay inaan gelino IT ayaan leenahay ayuu dhigtaa kadibna fiiga ayaan waxay maadaama money u yahay waxaan leenahay wuxuu bixiyaa $500 ayuu bixiyaa kadib com ayaan leeyahay arday kale ayaan rabaa inaan geliyo hadana ayaan rabaa inaan xareeyo 102 kadib waxaan leeyahay asli cabdi cumar ayaan leeyahay kadibna asli lambarkeeda waa kasta okay kadibna waxaan leeyahay asli waxay barataa maadada la yiraahdo PA ayay barataa waxayna dhiibtaa $350 okay kadib waxaan leeyahay marka xogtaan ii xareey execute ayaan leeyahay mar walba execute marka waa ii kici iga shaqaysii way okay hadda marka markii hore table-keena muxuu ii ahaa table-keena wuxuu ii ahaa sooma faaruq hadda marka bal fiiri hadda marka hadaan ku laabano table-keena fiiri all from and dhaho registration and dhaho okay hadda waxay ugu keedsan xog ayaa igu keedsan okay marka mar walba la dhihi karaa ra'dan xataa waa laga dhigi karaa xaraf yar dhib malahan isla datadii ayuu keenaya maxaa yeelay SQL ma ahan case sensitive SQL is not case sensitive ma ahan okay case sensitive maxaa macnaha erey kasta siduu ahaa in laga dhigo qasab ma ahan okay so marka waxaan hadda insert kale ayaan sameynaynaa laba qof kale ayaan kusoo daraynaa table-keena hadda fiiri insert haddaan isticmaalo capital letters waa isku mid into registration kadib waxaan leeyahay values qiimahan iisoo geli kadibna waxaan leeyahay 1003 liibaan cumar cali ayaan leeyahay kadibna liibaan cumar cali lambarkiisa waa eber 6 waaye 8 okay kadibna waxaan leeyahay faculty-ga uu dhigto liibaan waa medicine okay faculty-ga uu liibaan dhigto waa medicine fiiga uu bixiyana waa $1,000 arday kale ayaan soo gelinaynaa waa 1004 okay 1004 ardayga dhigto waxaa la yiraahdaa linda farxaan cumar ayaa la yiraahdaa okay eber 6 okay kadibna waxaan leeyahay linda waxay dhigataa lab ayay barataa kadibna lacagta ay bixiso waa $900 ayay bixisaa kadib waxaan leeyahay execute ayaan leeyahay 2 rows marka laba row ama laba jiif u tax ayaa la ii abuuray kadib waxaan leeyahay marka select calaamadaas waxa lagu magacaabaa star ayaa lagu magacaabaa laakiin waxa loo akhriyaa all ayaa loo akhriyaa select all from waxaan leeyahay registration wax kasta oo registrationka ku jira isoo saar soo marka 4 qof ayaa halkaas ay u keedsan marka maxaan dhacayo haddii aan dhaho select aan dhaho maxaa dhacayo maskaxdaada ka sii fikir student name comma fee from registration maxaa dhacaya haddii aan sheegi karo wax dhacaya aragno execute waxa ii soo muuqanaya kaliya magaca ardayga iyo lacagta cali cabdi $500 dhiiba liibaan cumar $1,000 dhiiba intii aan dhihi lahayn maya dhammaan ardayda isoo daabac intaan dhihi lahayn labada farqiga u dhexeeya waa fahantay sooma labada farqiga u dhexeeyo in la fahmay ayaan filayaa okay labada farqiga u dhexeeya waa fahmay hadda haddii aan rabno inaan soo saarno ardayda iyo kulliyadaha ay dhigtaan kaliya tusaale select inaan dhahno student name waxaan qorayaa column-kii sidii saxda ahaa ayaan u qorayaa column-kii waxaan leeyahay student name isoo saar iyo faculty-ga ay kala dhigtaan isoo saar from waxaa iga soo saartaa registration iga soo saar registrationka iga soo saar kadib waxaa soo baxayo cali cabdi IT asli cabdi BA liibaan cumar cali medicine iyo linda oo dhigata lab dhigata okay mid kale haddii wax shardi ku xiran aan soo saara ay ka war wax shardi ku xiran haddaan rabo inaan soo saara ka war tusaale ardayda dhiibta
ardayda dhiibta haddaan ardayda facultigooda yahay medicineka haddaan raba inaan soo saaro waxaan leeyahay where condition aan isticmaalaynaa select all from waxaan leenahay marka caqli ahaan barfeeri iisoo door wax kasta oo ku jiro tableka registration where waxaa iisoo daabacdaa keliya meesha facultyga is equal uu la mid yahay keliya iisoo daabac PA keliya iisoo daabac ardayda PA da dhigata kaliya isoo daabac waxa soo baxay Asli Cabdi Cumar oo dhigata PA hadaan dhaho IT na hadaan dhahan IT cid kasto IT dhigata isoo daabac waa IT okay halka ka waran hadda marka hadaan iraado select from registration hadaan iraado where salary is equal where salary aan dhihin where fee oo ka yahay hadaan dhaho $100 dadka fiigooda $100 ku dhigta ma jiraan dad fiigooda $100 ka dhigo ku jira ma jiraan hadaan dhaho kunna dadka fiiga bixiyo $1,000 ka yar isoo saar hadaan dhaho maxay soo baxayo Ali Cabdi oo $500 ku bixiya kuliyada iyo Linda iyo Asli oo $350 ku bixisa soo marka waa sidaas sooma hadii aan dhaho ka war ka yar 2,000 hadii aan dhaho ka war wax kasta ka yar 2,000 kun marka hadda uu soo darsamay liiban sooma maadaama uu bixiyo 2,000 wax ka yar maadaama uu bixiyo okay marka table-keena halku uu noo samaysan yahay soo muujintiina waa sameynay marka update iyo waxaan isticmaalaynaa hadda update iyo ayaan isticmaalaynaa iyo table kale videoga afraad ayaan rajeynayaa inaan isla socono insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo aad u mahadsantiin kulantii wacan